qiimaha maciishadaha iyo shidaalka adduunka ayaa kor u sii kacaya maalinba maalinta ka dambaysa, waana xaalad ka dhalatay dagaalka ka socda bariga fog ee Yurub. kadib COVID-19, dagaalkii Ukraine wuxuu sababay in dunida mar kale wajahaysa sare u kac ku yimid wax waliba oo la xiriira nolosha aadanaha. Ukraine iyo Russia ayaa soo saara 30% qamadiga adduunka, sidoo kalena waxay soo saaraan 20% galleyda. dagaalkoodana wuxuu saameyn ku yeeshay dalal badan. Soomaaliya ayaa iyadana wajahaysa xaalad sicir barar kadib markii shirkadaha korontada Muqdisho ay sheegeen in qiimihii korontada halkii kilowatt ay ku dareen 0.10. si la mid ah, shidaalka ayaa aad u qaaliyoobay, taasoo sababtay in qiimo ka badan midkii hore lagu raaco bajaajyada, oo ah gaadiidka inta u badan ay bulshadu u isticmaasho isku socodka maalinlaha. sidoo kale waxaa qaali noqday saliidda cuntada lagu kariyo, taasoo keentay in bulshada si aad uga hadlaan maadaama uu ku soo wajahan yahay soonka, waana bil ay Soomaalida aad u isticmaasho saliidda. maalmaha iyo muddooyinka soo socda, hadduu sii socdo dagaalka Ukraine, saameynta dhaqaale uu ku yeelan doono Soomaaliya ayaa ah su'aal ay maskaxdooda ka guuxayso dad badan oo Soomaaliyeed. haddaba sare u kaca soo kordhay ma yahay mid adiga saameyn kugu yeeshay?